ciidanka sida gaarka u tababaran ee kumaandooska danab ayaa howlgallo qorsheysan waxay ka sameeyeen deegaano ka tirsan gobolka Shabeellaha Hoose waxaana ujeedka howlgalkaanu uu yahay ciribtirka maleeshiyaadka baxsadka ah ee argagixisada Al-Shabaab. Howlgalka ayaa waxay ciidanka kumaandooska xoogga dalka Soomaaliyeed ee danab ka sameeyeen deegaano hoos yimaada degmada Awdhigle ee gobolka Shabeellaha Hoose kuwaasi ay ka mid yihiin Tawakal, Daarusalaam, Shaam Garre iyo deegaano kale kuwaasi oo ay ciidanka ka warheleen inay ku dhuumaaleysanayeen maleeshiyaadka argagixisada ee Al-Shabaab. Qaar ka mid ah saraakiisha ciidanka xoogga dalka ee howlgalka hogaaminayay ayaa warbaahinta ciidamada u sheegay in howlgalka lagu burburiyay meelo ay argagixisada gabaad ka dhiganayeen iyo xarumo ay lacaga baad ah kaga qaadanayeen shacabka Soomaaliyeed ee ku dhaqan deegaanada howlgalka ay ka sameeyeen ciidanka kumaandooska xoogga dalka ee danab. Howlgallada noocan oo kala ee kumaandooska xoogga dalka ay ka sameeyaan deegaanada ay ku dhuumaaleysanayaan cadawga ayaa mar walba khasaare culus waxa lagu gaarsiiyaa argagixisada Al-Shabaab.